بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa cajaladii shanaad ee siirada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. waxaan inoo soo jeedinaya walaalkeen sheekh mustafaxat ismaaciil haaruun. abubakarna wuxuu iska aqbalay inuu xamilo wixii dhib gaadhayay, nabiguna calayhi salaatu wasalaam inuu joogaa buu tilmaamay. hijradii hore saxaabadaa hore hijrootay ee dhowr iyo tobanka ahayd, dhowr iyo tobankaasi intay sii maqnaayeen ayaa maalin maalmaha ka mida buu nabigu calayhi salaatu wasalaam masjid xaraamka gudihiisa ayuu suuratu najmi akriyay. wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa gawa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiid lquwa. aayadkaasuu akriyay. muslimiintii meesha joogtay oo dhami way sujuuday, mushrikiintii meesha dhegaysanayena way isxeji kari waayeen oo way sujuudeen. laba nin oo ragga kibirka badan kamida mooyaane baa layidhi. dabeetana war baa faafay odhanaya qurayshiba way islaamtay. maalintaasi markay ishayn kari waayeen qur-aanka loo wada sujuuday markuu nebigu akriyay ayaa war faafay odhanaya qurayshba odayadeedi iyo dadkeedi waaweyne maanta masaajidkii joogo o dham inta maxamed qur-aan akriyay ayay dhammaantood wada sujuudeeno dadba wada islaameen. waxaa jira riwaayaad mursala. xadiidka mursalki waa xadiid uu taabici warinayo o aan gaarsiisnayn saxaabi. mursal saciid ibnu jubayr iyo abubakr ibn cabdiraxmaan iyo abulcaaliya, saddex mursal oo saddexdaa nin gaadhaya baa jira oo isagu sheegaya in shaydaan nabiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisa uu kusoo tuuray wax oo qiradii ay kamid ahayd. iyaguse sheegaya nabigu akriyay in uu ammaan yari ku jirtay oo sanamada la ammaanayo oo tilka labaraniiq ilcula waina shafaacatuhuna laturja, weedho sheegaya inay ammaan u tahay asnaamta, shafaacadoodana in la rajaynayo inay carab ku soo dhacday. riwaayado mursala jiro iyagu daciifu sanad ah oo sheegaya cibaaradatan in shaydaan yidhi oy mushrikiintuna maqleen muslimiintuna aanay maqal, oo mushrikiintuna sanamadooda la amaanay bay la sujuudayeen, muslimiintuna yani suuratu najmi qiradeeday la sujuudayeen. laakiin qisadaasi culamo badan baa radiya, inkastoo mursalkaasi ilaa xadkiisaasi uu sanadkiisaasi saxiixiyey, laakin culamo badan baa radiya. waxaa laleeyahay aslu lcaqiida bay kasoo horjeedaan. walidalik ba masalan sheekh ilalbani waa kan qoray risaalada dhan la ydhaha nasb lmajaniq linasbi qisati lgharaniq. waa warafiyadu aan uxidhanayaa buu leeyahay qisadaasi sidii loo tuurtuurin aan wax ka jira aanay jirin. waa qisa runtii aan sal caqiidada ku lahayn. sida saxayina waxay tahay un suuradda tan inay isxejin kari waayeen niman carbeed oo luqada carbeed garanaya bay ahaayeen, inay isxejin kari waayeen dhegaysigii suurada tan, sidaasi daraaddeed inay la sujuudeen. ala kulli xaal waxaa faafay war odhanaya quraysh baa islaamtay. muslimiintii joogtay markaasi ardi alxabasha qayb kamid a ama muslimiintii halkaa joogay war baa soo gaadhay odhanaya qurayshiba way islaamtay. dabeetana waxay tidhahdeen dee dhulkii miiskaga noqdo mar hadday quraysh islaamtay dhibtii way dhamaatay. qoladii hore hijrootay dhowr iyo tobanka ahayd warkaas baa soo gaadhay. dadkaasi markaa qayb kamid a ayaa ahlu taariikhu waxay yidhaahdaan ama ahlu siyarku baa soo noqday oo uu kamid yahay cusmaan ibnu madcuun ninkii la odhan jiray. waxay soo socdaanba markay maka yimaadeen ama duleedadeeda markay yimaadeen ayay ogaadeen warkaasi inaan sax ahayn. quraysh odayadeedi iyo nimankii habaarka qabayna inaanay islaamin. waxay noqotay markaasi inay dib u xidhxidhaan, haddana halkii bay dib uga xidhxidheen. laakiin marka kan waxaa ku darsamay baa la ydhahdaa raacay dad kale oo iyana rabay meeshan dhibsi ku tira badatay inay iska hijroodaan ayaa helay dad dee wada mareen oo meeshii soo maroo kala yaro garanaya wax. dabeetana dad kalo badan ayaa soo raacay. ibnu isxaaq isagu wuxuu odhanayaa markan dambe dhowr iyo 80 nin bay ahaayeen. ibnu jariirna wuxuu leeyahy 2 iyo 80 nin iyo dhowr iyo 10 dumar ah, ama 2 iyo 80 nin bay ahaayeen marka laga reebo buu leeyahy dumarka iyo carruurta. dumarka qudana waxay ku sheegaan mar labaadkan dhowr iyo 10 inay ahaayeen. cala kulli xaal ahlu siyar dad badan bay sheegayaan markan dambe inay ahaayeen oo 80 kor u dhaafay. dadkan dambe dib bay uhurjiroodeen, waxaana qabteen iyaguna ardi alxabasha. culamaai taariikh siday warinayaan waxaa la yidhahdaa waxay qurayshi markaa tidhi waa dhib badan tahay in
meesha intay isugu tagaan ay ciidan kale iyo wax ka soo heli karaan nimanka warkooda intaanu lagu faafin aan soo qabqabanno. marka laba nin oo Quraysh waayeelkeeda iyo ragooda cajabta badan la kamid ah la diro boqorka xabashidana waa Najaashi boqorka xabashidana ha loo diro iyo bataariqadiisa yani wadaadadiisa kalaarjiskiisa ha loo diro hadiyado tiro badan leh haynugu soo dirana la soo qabqabto nimankaas iyagoo maxaabiista hala keena baa layidhi. waxaa la diray laba nin oo mid yahay Camr ibn al-Caas saxaabiga ahaa marka kan gaal weeyaan intaanu islaamin weeyaan. Camr ibn al-Caas waa ninkay ku tilmaamaan daahiyat al-carab baa la odhan jiray nin aad u caqli badan oo maskax badan buu ahaa. iyo Cabdillahi ibn Abi Rabiica labadaasaa la isku daray waxaa la yidhi Camrow nimankaa maanta meel kaga soo hoyo keen adigoo wada iyagoo maxaabiis. Camr baa yimi iyo ninkan kale la socda oo hadiyada wada oo boqortooyada loo sido. boqortooyada tan hadiyada loo siday markaa waxay damceen inay la kulmaan boqorka waxaanay weydiisteen inuu soo celiyo nimanka kan. Najaashi wuxuu yihi muslimiintiina bal halaygu yeero. muslimiintii oo kamid yahay Jacfar ibn Abi Talib baa loo yeeray. wuxuu yihi bal hadla ka warrama ninkani waxaan buu sheegaya idigu diintiina yani cadaaladu way ka muuqataa durbada waayo cadaalad darro waxa ah in cid qudha intay cid wax ka sheegta lagu akriyo dabeetana xukunka lagu qaado. cadaaladda waxay halkanba ka muuqataa ninkani inuu nin siduu nabigu u sheegay cadaalad garanaya yahay. Quraysh iyo odayadeedii iyo hadiyadaheedii iyo waxeedii intuu qaato warkii dhegaysta mu odhan inuun waa kuwa nimanka tolkooda iyagaa war badane kooxdan yaryari waa iraabiyin hal celiyona mu odhan wuxuu damcay in baliyana waxay hayaan la weydiiyo oo la waraysto labada dhanba inuu afti ka qaado. markaas buu ku yidhi muslimiintii bal warrama idinkuna. Jacfar ibn Abi Talib baa markaasi hadlay wuxuu yihi boqorow waxaanu ahaan jirnay niman shirki iyo gaalnimo ku sugan sanamka caabuda baktiga cuna jaarka u daran wax kasta xalaashada badhba badhka iyaga uu dilo dhiigga iyaga aanu isbanaysano wax naga xaaraanina ma jirin wax noo xalaalina ma jirin hor baanu isaga soconnay annagoo nooca u nool ayaa ilaahay noo soo diray nebi annaga naga tirsan oo aanu garanayno ballankiisa iyo runsheegiisa iyo ammaanadiisa yani nimaanu naqaano aan ahayn nimaanu khiyaamo iyo been iyo ahdi xumo iyo waxaanu ku naqaanay aan ahayn baana loo soo diray. ninkaas wuxuu noogu yeeray buu leeyahay ilaahay noo soo diray nebigaahi inaanu ilaahay keligii caabudno oo aanan cidna ku lamaanaynin inaanu qaraabada iyo raximka iyo dalka xidhiidhino inaanu jaarka u fiicnaano inaanu ilaahay u soonno oo tukanno inaanu cibaado yani wanaag oo dhan buuna faray. wuxuu ku yidhi baa la yidhi markaasi Hiraqal hal macaka shayun mima jaa bih wixii uu idinla yimi wax ma ka haysaa yani waxyigan uu idin keenay qur-aanka aad sheegayso bal haddaa wax ka haysaa sheega. wuxuu kaloo u yeeraa la yidhi wadaadadoodii kiristanka ayaa saaqifadoodii wixii oo dhan buu yihi soo fadhiiso. Jacfar wuxuu yihi ha waan haya haluma fatlu calaya ma jaa bihi buu yihi bal igu akri buu yihi haddaba waxaanu la yimi. Jacfar ibn Abi Talib saxaabi runtii caqli badan buu ahaa. wuxuu ku akriyey suurad ka warramaysa muctaqadka iyagu rumaysnaayeen suuratu kaaf ama maryama suuratu maryam ayuu markaasi ku akriyay kaafa ya cayn saad suuraddaasuu ku akriyay. Najaashi markuu suuraddii dhegaystay ee uu fahmay ayuu ooyey ilaa iyo baa la yidhahdaa godkiisi uu qoyay siduu u ooyayey. wadaadadii kiristanka meesha fadhiyeyna waa ooyeen. wuxuu Najaashi markaa yidhi warkan aad sheegaysa iyo warkii Muuse la yimid meel quray kasoo wada baxeen. maya warkii Muuse la yimid buu yidhi meel quray kasoo wada baxeen say riwaayadaasi sheegayso. markaasay Quraysh nimankii Quraysheedaa waxay arkeen inay jabeen markii la yidhi warkan uu Maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ah iyo warkii nabi Muuse sheegayay oo kale waa waxyuun meel ka wada yimid ayay waxay damceen inay ninkan Camr ibn al-Caas la yidhahdo daahiyat al-carab waa nin caqli badan sida aynu ku tago muu dooranin wuxuu isku dayay bal inuu dhan kale ka soo wareego oo bal jalse kale la sameeyo. wuxuu yidhi nimanka kani ciise waxa ugu xun bay ka sheegaan xoogya in
kiristanku ciise u haystaan inuu yahay ina ilaah ama ilaah uu yahay. dabeetana wuxuu damcay inuu baabkaa ka soo galo oo baabkii ahaa nimankani waa niman xunxun oo tolkooda bay ka baxeen oo waa kaasu socon waa. idan waa inuu imikana galaa inay kiristanka wax ka sheegaan oo idinkaba qaar wax idinka sheegaya inay yihiin. wuxuu yihi nimanka kani wax xun bay ka sheegaan. ayuha almalik buu yihi inahum yaquluuna fi ciisa qawlan cadiima. ciise waraad xun bay ka sheegaan. najaasha haddana u yeeray wuxuu ku yihi maxaa jacfar buu yihi maxaa ka tidhaahdaan ciise. jacfar wuxuu yihi waxaanu leenahay huwa cabdullahi warasuuluh wakalimatuhu waruuxuh alqaha ila maryama alcadraa lbatuul. waxaan leenahay bu yihi waa ilahay addoonkiisii ciise, waana ilaahay rasuulkiisii, waa kelmadii ruuxii ilaahay uu maryamo ku beeray, saasaanu leenahay bu yihi. najaashi ba wuxuu yihi maa cadaa ciisa bnu maryam mima kunta hada alcuud. qori yaritu qaaday bu yihi qorigaa wax uu dheer yahay intaa adigu aad sheegtay ciise ma jiro. dabeetana wuxuu amray boqorkii ammaan nabadgelye in la siiyo muslimiinta kan. umu salama markaasa waxay leedahay faaqaamuu maca khayri jaarin fi khayri daarin ayay umu salama ku tilmaamaysaa. xadiidkaas iyo sanadkiisa xasan yahay. waxaanu degnay bay leedahay jaar kii u khayr badnaa kulla la darto daraskii u fiicnaa iyo gurigii wanaagsanaa baanu saa ku degnay. riwaayaat saxiixiyi waxay sheegaysaa wadaadada tan markaa laga waramayo ay la fadhiyey ooyey majlis najaashi inuu qur-aanba soo degay adkaynayo masaladan qisadan siday u dhacdo ilahay leeyihi walatajidana aqrabahum mawadata liladina aamanuu الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آية القرآن إلهي لي دك أغدوا مسلمين تكالقع الوحايين كل نصاران نهي وأي وحا كم ذا قسيسين ولادوا iyo ruhbaan kuwa cibaado u go-ay waxaana yihiin ba ilahay kuwaan iswaaweyneynin. waxaad arkaysaa marka yani ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey iyagoo ilmintu ishooda ilini ay ka dareerayso. waxaad moodaa mubaadaradii ama isku dayi quraysheed ee ahaa inay muhaajiriinta soo celiyaan inay ku khasaareen oo marka kan ay socon weyday, muslimiintiina inay heleen meel ay degaan. waxyaabaha runtii u fiirsiga lena waxaa kamid ah mawqifkay muhaajiriintu caqiidadooda iska taageen. may qarinin ciise manay ka warwareegin ee wixii ay ka rumaysnaayeen xaqiiqada ahaabay ka sheegeen iyagoo khilaafsan kiristanka agtooda wixii saa'idka ahaa warwareegin ee wixii ilaahay ku ogaanay diintooda ku yaalay bay sidooda u sheegeen. mawqifkooda xaqiiqada inay caqiidadooda ka run sheegaanna ahna ilahi subxaana watacaala waa ku nabadgeliyey oo hijradoodaasi meel fiican ayay ugu dhacday oo waa degeen. waxaase iska dhib badan kolleyba dhul qurbaa ku noolaantii iyagoo nimankani dhul carbeed niman ku noola ay ahaayeen oo yimid dhul aan af carabi lagaga hadal ama aanay tol iyo qaraabatoona la wadaagin, midab iyo diintoona aanay la wadaagin. waayo waxay u yimaadeen najaashi ama dawladii waa qolada tan xabashida imika kuwan hadda haysta iyo haadigo meesha ka yimaadeen weeyaan. waa mililik iyo xaylasalaasiya kuwan baa samaystay, laakiin xabashidii hore waa qoladan imika haadiga loo yaqaano ayay boqortooyadan lahaan jiray. boqorkoodan horena wuu islaamay dadka, laakiin in badan waxa kaga qaldanta haddana boqoradii dambe uu nebigu waraaqa u dirdirayay mid dambe oo gaalabu kaasi ahaa. laakiin kan hore islaamay waa asxama, isagoo asxama waanu islaamay, islaamnimaanu ku dhintay, nabigaana ku tukaday calayhi salaatu wasalaam nacyigiisii markii lasoo sheegay isagoo madiine jooga. saxaabadii waxay dareemeen un dhib aada u tiro badan le. dhibtaasi suuradeeda sawirkeeda waxay nagaga filan markii muslimiinta kale ay hijroodeen ee madiine ay tageen ayaa qoladanina mar dambay ka yimaadeen xabashida. dabeetana waa la dooday. cumar iyo gabadh la odhan jiray asmaa bintu cumays ayaa murmay oo kamid ah dumarkii u hijrooday maka ku hijrooday xabashida kasoo noqday. markaas cumar iyo ba waxay ku yidhahdeen annaga dee hijradii nabiga idinkaga soo horreyno idinka xaq leh, yani nabiga annaga hortiin u nimi oo dee muddo la joogay o u gargaarayno la soconay. gabadhaasoo gabadh caqli badnoodna ahayd ayaa waxay ku tiri markaasi
كلا والله كنت مع الرسول ما جرت بيت العمر واحد شيء ثاني إذن كو واحد لسعة لله رسول كيسي ويطعم جائعكم ويعد جاهلكم إذن كو واحد لسعة لله رسول كيسي وكينا قاتيتن قودين كينا وحقرنا إنه وحشيغ يو وعدين أنه سألول فق وقرباء بانو تشوغري وعن رسولنا لا يشوغين عدنا إنه وعدين يعد وحضا شكتو قلنا هاني نلسع عن بيت المامسة يعني غربتك ورميت مكان إلهي درتي هي النبي عليه الصلاة والسلام ديتو لي من القادنة تردد بان الحق وشوغري وحانا وعين بين كوا كنا نؤذى ونخاف كوا الله ديبهم وعبصنا يبان وعين النبي عليه الصلاة والسلام وركو دي مركو دقيستين وكلا قرن قوح قولي ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان فعدم الفرح بين مهاجرة الحبشة حديث بخاري فيها وحاو النبي قولي عليه الصلاة والسلام إيجا مكين أوليتنا قلالتني عمر إياك وحدي سهل هجرة إليه إذن كل لكن سلمه هجرة ليه بولا يتيه وراء حقه هجرتين يتنضم بها مدينة وسوى هجرتين لا يهادوا فرحين المسلمين تي ماشي أسيو هجرة يعلمي فكل حال علماء تاريخ وحي وريان ور من حيث السند حوق الصحيح أما السند كيسو أنه في عينين أهل المغازي قلنا الشيغان من عبيد الله بن جحش اللورنشري ننكي قبي أم حبيبة بنت أبي سفيان والنبي مركي دم برسلي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين كمدة نك أسبايد هذان وحكم دي عدي كريستيان ودي انتي وجوغي حوشدة كدبنا يسوي حوشدة كلها هذا القصة في الساعة أوطهاي القصة كلا شرته ولين عبد الرحمن بن خالد والله إذا وكتير صدق لغة المام يسمى كده حسن يعني لكن هذا مركز السكور الضروة ضعيفية وحديثان ومسك نبيلين كاسنا وحشرية إنه النبي جواه حسي درتارمي لكن على كل حال قصة ولا هذين وقاضنا هذا شيء ذاتي وشفته إنه نكاس كوكر التامر واحد أركيته ومركز كهر لكي دين تيده يدت كده شوقي كتكته إلى أبنت الله إلا وغاصده ويفضل دايما كاسين عدي كدعته هذا يدعبي بين صحابة بدل لو غاصن كري waxaad garan kartaa un cid kasta oo dhul gaale tagtay oo wasat ama bi'aan environment ama deegaan tagtay gaalnimo unay joogto ama kristal waay ama waxaan lagu hayaa inay fududahay in cid badan ka daadato waana cabsida runtii maanta u taalla dadka Soomaaliyeed ee in badan u kala qaxay caalamka gaaladu ay ka buuxdo oo waliba dhibta ugu badan ay tahay iyadoo dadka ugu badan ee joogaan ay dumar iyo carruur yihiin iyo dhalinyaro yani dadka ugu badan ee joogaa yihiin dad jilicsan ama dhibta labaad ee jirta ay tahay dad aan diinta wax badan ka aqoonin ama mar labaad ay jirto dhul badan oo aan xataa dad diin u sheegay waxba toonaanay la soconin ee gaalow inta afka uga galeen ay iskala degeen in carruurta iyo dadka meesha ku kobcay iyo aragtida iyo waxa ka soo baxay dhow kristan wada noqdaan ama diin laawayaal ay soo baxaan wax badan maaha inkastoo Soomaalidu ka fakaraan qofku wuxuu culamo helaya kuwii xagga joogay si bil ma u soo diraya taladu doona isagoo ha qaato markaasi أم حبيبة ونكاسي كدنتين النبي عليه الصلاة والسلام باو خطبة يعني أيها قرسلي ونجاشي وصدري ور إن قبلت هاي لو قوريو لو مهريو نبي قال لو مهري عليه الصلاة والسلام نجاشي بانا مهرك كبحية بالله إرادات إذا مسند إمام أحمد قصبا إسناد صحيح ولبا هي سنن أبي داود يعني حديث صحيح سيدة وتلمامية أفر بقل أفر كن ayaanu meher uga bixiyay isagu najaasha meherka ka bixiyay 400 oo meher bixiyay 4,000 oo meher ka bixiyay waxaanu ku soo daray markaasi iyadii iyo ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam dib ugu soo daray saxaabiga la oran jiray Shurahbil ibn Hasana ayaa la soo raaciyay nabiguna kaleey salaatu wasalaam waxba muu dirin hantidan tirada badan lana najaashi ayaa ka bixiyay waxaanu ahaan jiray نبي عليه الصلاة والسلام مهرك ودمر كيس مهريه عليكم السلام هوينك مهرك كبحيي دمان تدوحي ولا هاين أفر بقولوا درهم أيها هوينك سكالون النبي بوكو مهر صبي لكن هوين إذا سن أفر كن أو درهم أيها لك بحيي صحابتي حتى ينبغوا هجرتي عليه الصلاة والسلام
saxaabadii u hijrootay baan ujeedaa dhulka xabashida ee muddada deganayd kadib waxay markii muslimiinta ay madiina degtay intoodii badnayd weliba kooxoodii ugu dambeeyo jacfar ibn abi talib uu wadaana waxaaba yimaadeen khaybar markii la furtay ayay soo gaadheen laakiin intii ay meesha joogeen wax kaloo saxaaba ah oo iyana soo hijrootay oo gaadhayabaa lagu tilmaamaa sida uu sheegayo 53 nin ka kooban oo wato saxaabigii la odhan jiray abu musa alashcari oo yaman ah ashcariyiin ah kooxda tan waxaa la yidhahdaa yaman bay ka yimaadeen dabeetana doontaasay soo raaceen waxay rabeen inay qabtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dee doonyihii sharaaca lahaa bay hayda badda ku kacday dabeetana xeebtan un xabashida ayay kusoo dul dhaceen markaas bay iska ugu yimaadeen saxaabadii kale halka joogtay kadib baa laysu soo wada raacay hadhow ayay iyaguna yimaadeen madiine markii dambe iyana 2 goor bay markaa hijradoodii noqotay iyagoo markii hore u qastiyey inay madiine qabtaan laakiin doonta aanbatay ay geysay xabashida kadib ay xaggaas ka soo hijroodeen taasi waa qisada ku saabsiisan xabashida iyo hijroodkoodii haddaynu dib ugu noqono markaasi maka muddadan ay saxaabadani xaggan kusoo maqnaayeen iyo wixii dhacay waxaynu nidhi saxaabadii 80-nada dadkaa ka badani waa ka hijroodeen oo xaggan bay soo qabteen dadka intii ku hadhay hijroon kari weyday ama bixi kari weydayna sidii baa loo dhibay nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wixii meesha joogay sidii bay diinta ufaafinayeen ay diinta u socotay dadyaga soo islaamay markaa waktigaasi waxaa kamid ah ninkii la odhan jiray cumar bin alkhataab radia allahu canhu cumar bin alkhataab iyo qaabku u islaamay waxa xadiis oo saxiixa oo kusoo arooray ma jiro laakiin ibnu isxaaq ayaa wuxuu tilmaamaya islaamnimada cumar inay dhacday intii xabashada loo hijrooday kadib yani weliba hijradii koowaad dabadeed inay dhacday waaqidi oo ninkaynu dhowrka goor soo tilmaamnayna isna wuxuu leeyahay waxay dhacday sanadkii 6aad dilxija sanadkii 6aad ee bicsada weliba wuxuu leeyahay isagoo cumarna markaa nin 26 jir ah riwaayada waaqidi aynu leeyahay xadiistiisa lama qaato waxa uu odhanayaa muslimiintu 40 ama 50 ama 56 meelahaas bay ahaayeen buu leeyahay duuduuba waxa ay arrinku ku kooban yahay un cumar wuxuu ahaa nin xoog badan oo ragga wasniga ku leh magaca ku leh carab dhexdeeda ka mid ah waxaanu soo islaamay oo wakti muslimiinta aada loo dhibayay oo adaab uu ku dhib badnaa cumarna markii hore islaamnimada halka uu ka joogay waxaad ka garan kartaa xadiidka saxiix ee masalan bukhaari ku yaala ee uu ka waramayo ninka la yidhahdo saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nafil oo ah nima ilmaadeeriyeen cumarna walaashii qabay faatima gabadhii la odhan jiray qabay faatima bint alkhitaab gabadha la yidhahdo qabay ayaa wuxuu leeyahay wallahi laqad ra'aytunii wa ina cumar limawt waxa ilaahay baa ku dhaartay buu yidhi waxaa soo maro ay joogtay buu leeyahay la arkay iyadoo cumar uu islaamnimo daraaddeed ugu xidho intii aanu islaamin yani intuu xidhay inuu ciqaabi jiray ninkana ilmaadeerka iyo in adeertiina qaba idan cumar wuxuu kamid ahaa un dadka dhiba maxay muslimiinta ayuu kamid ahaa dadka badhna qisaska badh waxay isku xidhiidhiyaan markaa ninkaasi la yidhaahdo saciid ibnu zayd iyo islaamnimada cumar oo qiso ayaa jirta iyana aan asaxin oo sheegaysa inuu ku talagalay inuu nin dilo dabeetana isagoo maagmaagayo uu nin kalo saxaabi yidhi waaraan cumar iska celina maanta oo yidhi maad gurigiina islaamnimada ka celin intaad annaga nagu soo socoto oo uu maqlay markaasi ugu horreysay in walaashii islaamtay iyo ninka kani dabeetana gurigoodii uu yimi nabar uu ku dhuftay kadib waraaq qur-aan oo ay akrinayaan uu ka qaaday taha ma anzalna calayka alqur'aana litashqa suuradaasi ay ahayd laakin ma asixin iyaduna qisada cumar laakiin waxaa kaaga filanayo siduu u adadkaa iyo islaamnimada uga fogaa marka hore waxaynu soo qaadan doonaa masalan waxa umu cabdillahi gabadha la yidhaahdo iyo ninkeeda oo kamid a dadkii xabashida u hijroonayay cumar nin adadagna uu ahaa mararka qaarkood nin naxariis badanna uu ahaa ayaa waxay leedahay anagoo guurayna oo xidhanayno oo rabna inaanu baxno oo ninkaygiina uu ku maqan yahay bay leedahay
iga tagay oo ku maqan yahay yani qalab urursigii oo ku maqan yahay annaan xidhinayo tii baxaya Cumar igu soo baxay bay markaasuu iskay dul taag isagoo gaalkiisii wuxuu igu yidhi bay tidhi waana nimankii aanu dhibta kala kulmi jirnay bay leedahay Cumarku wuxuu igu yidhi bay tidhi xaggaad qabanaysaa miyaad tegaysaa bay tidhi innahu lilintilaaq ya ummu cabdallah waxaan u malaynaya inaad safraysaan waa tegistiinni miya markaasaa waxaan ku yidhi bay tidhi nacam wallahi lanukhrijanna fi ardi illah aadaytumuna waqahartumuna xataa yajcala allahu makhraja ha wallahi baan ku dhaartay waa ka teginaa meeshan aad degantiid ilaahay dhulkiisaasaan u baxayna la dhibto nafta isugu kaaya keentaa ku yidhi bay tidhi cumar calaacalkii ay gabadhani calaacashay ayuu ka naxay dabeetana wuxuu ku yidhi saxibakum allah allah idin dhowro ayuu yidhi iskaga kay tegay bay tidhi gabadhii waxay ka yaro dareentay cumar inuu naxariistay oo kale sidii buu kaga tegey caamir baa yimi ninkeedii markuu yimi baan u sheegay bay tira waxaan idhi bay tidhi aaba cabdallahi haddaad arki lahayd cumar maanta sidii u murugooday markuu arkay inagoo safray noo baxayna wuxuu ku yidhi atamicti fi islaami nayaha buu ku yidhi ma islaamnimada cumar baa ayaa hunguri kaa haya yani sidii ufogaa ninkan ma ka rajaynayo ma islaamnimada cumar ayaa hunguri kaa haya buu ku yidhi markaasay ku tidhi ha cumar islaami maayo buu yidhi falaa yaslim aladi ra'ayta xataa yuslima ximaaru lkhitaab kaad sheegaysaa islaami maayo ayuu ku yidhi ilaa iyo dameerka khitaab oo islaamo mooyaane yani dameerkaasaa ka hor islaamaya cumar siduu u fog yahay waxaanu rabay inuu ka quusiyo arrintani waa qasaska waxa iyagana soo wariya ahlu siyar laakiin waxaa meesha muuqata gabadhu inay ka ra'yi toosnayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka sunan tirmidi ku sugan ee sanadkiisu yani uu tirmidi ku tilmaamay xasanu saxiixa inuu yahay waxa uu sheegayaa xadiidku waa saxiix ligayri cala kulli xaal culamadu markay isu geegeeyaan waxa uu sheegayaa xadiidkaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay baryi jiray inuu ilaahay diinta tan ugu gargaaro cumar ilaahayna ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa aqbalay dabeetana cumar wuu soo islaamay markuu soo islaamayna runtii wuxuu ka mid noqday arkaantii ugu waaweyneyd ee dadka muslimiinta ay ku tiirsadaan bale waxay gaadhay markuu soo islaamay in dadku masaajidka ay ku tukadaan iyadoon cidna dhiban ibnu mascuud ayaa xadiidka bukhaari ku yaalla waa kii lahaa maa zilna acizatan munda aslama cumaru buu yidhi maanan ka suulin buu yidhi inaanu dad sharaf loo cize le noqono sidii cumar uu u islaamay mar kale waa ka tilmaamaya xadiid tabaqaat ibn sacd ku yaalla sanad saxiixa kusoo arooray laqad ra'aytuna wama nastatiicu an nusalliya bilbayti xata aslama cumar falama aslama cumar qaatalahum xata tarakuna nusalli waxaa la arki jiray buu leeyahy waxaa soo joogay iyadoo aanan awoodin inaanu masaajidka ku tukan karno ilaa iyo uu cumar islaamay buu leeyahy markuu islaamay buu dagaalamay ilaa iyo ay naga tageen oo noo ogolaadeen inaanu ku tukan karno masaajidka mar kale xadiidu mucjam alkabiirka ku yaala tabarani oo isna isnaadkiisu xasan yahay waa kale ibnu mascuud laftiisii ina islaamuhu kana nasra buu yihi diinta soo galistuu soo galay cumar waxay ahayd nasri guul alle uu islaamka siiyey islaam mucjamkaasi cabdillahi ibnu cabaas waa ka isaguna sheegaya cumar isagoo ka warramaya xadiidkiisuna waa xasan sanadkiisu cumar maalintii midida la geliye uu dhiman doono ee dambe khilaafadiisii markii midida la geliyo ibnu cabaas isoo dul taagay isagoo leh cumar buu la hadlayo wuxuu ku lahaa isagoo leh cumar buu la hadlayo wuxuu ku lahaa falama aslamta kana islaamuka cizan waadhar allahu bika alislaam warasuulu llahi waasxaabah warasuula allahi waasxaabah markii aad islaamtay buu leeyahay cumarow wuxuu islaamnimadaadii horena ahayd casiiznimo iyo sharafti oo ilaahay subxaana watacaala islaamnimada iyo rasuulkiisii iyo saxaabadiisiiba kugu kor yeelo kugu muujiyey cumar iyo siduu islaamay haddaynu soo qaadano qiso shaahido ayaanu soo aroorinaya oo siirada ibnu hishaam iyo ibnu isxaaq ba sanad xasana kusoo saara ibnu kasiirna uu leeyahay waaba sanadku jayid cabdillahi ibnu cumar ibn alkhataab weyaan inankiisii
وكورميا وحي دعي مركاسي وعمر إسلامي ولو وقتها إنا يروا عقل لو وحكا لقرنا ينهبوا لي ولبوا ميلاها كسوقاتان يعني إسلام لماذا عمر إنا وقتها قبة يقنيد وحي كسوقاتان ما دام عبد الله بن عمر دا وحكا لقرنا يسواها غزوة بدر نسجي لودي دا وهي أفريد تبجرها يعني إنا وقتها قبة يقنيد بدر هرتيد إنا كنا عيسور مدان تواصل كير ووقتها قبة يقنا وما لها يسجد يعني تصور أن وقتها يتعضي ما كان حسابين علماء التاريخ في صدر حدث كيس ده عبد الله يرى حساب طبعا وهي عبد الله تصرف في نشر دراسه وين يرى وابيه تبص علينا وحنا بدعان وشكرة عقلية لي وقت بدلنا إنه نلودي دايما إنه أحد إن بياك الكلام بياك الله بحمد اللودي دايما من الله وكلا ضد على يرايبها على كل حال وحلايا هي أفهي مكو إسلامي أي قريش أنقلوا للحديث قريش نلما وركيسو دك قاكينك إيش أغنيك ضدك وهو وركيس يعني وحر الإسلام لماذا سينو كشغل إعلام كوبوه إلى مكان قريش بحدادة كتيرا سدد ورد مبوه قاعد ورك عمران مرة وقرصه منه ما كسول عليه قريش ورك يا وقاليوك واحد يجيبوه إنما جميل ابن معمر الجمحي نيكاس حقوق الله عبال يجيبوه يجي حقيش عبد الله بن عمر عليه فغدوت أطبع ترى وأنظر ما يفعل وصادم قال يقول لي يا أبا يعني هو بليه يوحى والسمعيه ويجي أنا إلى أبو عبد الله يقول لي وأنا غلام أعقل كل ما رأيت ويل يروح أحكما جرانك رفهم كرما أبو لي ما كيونين كيوجمي أيوه يقول لي أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد وهي أهلوك يدنيكي والموقت يقول أرطينا الإسلامي وديتي نبي محمد قالي ninkii lagu yidhi quraysh oo dhan isaga uu warka uu qaadiro ayuu warkiisii u sheegay Umar aynkaas ku yidhi ibn Umar wuxuu leeyahay wiilkii isagoo hadlaya fa wallahi ma raajahu hatta qama yajru ridaa ilaahay ma ku dhaartay buu yidhi hadalka kumuu celinin buu yidhi ninkii wuu istaagay isagoo maradiisii jiidaya buu yidhi hataa maradii aan saalu qaaday isagoo marada jiidaya ayuu dhaqaaqay buu yidhi Umarna wuu tabagalay buu yidhi anna waa sii dabagalay buu leeyahay xadiiska warinaya markaa صدق لودي والتوسعنا أيا قبطي حقي مسجد وحيش أقول نيكي باب المسجد مكو مريي أيو قيل البدء بقص قبطي ويري يسوى يا معشر قريش نما كان ديالو دي مالي غير ولا ماضي ولا مجلس كيو كو عام تاكسي ألف لك لفري تجري هي أوفر ليها أيو البدء بقص قبطي ويري وأنا قريشي أنا إلا عمر قد صبا عمر دينتي وقبحي صبا وحيو استمالا قفل ديت خبح ديك لكلا يعني وحلا عمر دينتي وقبحو كان موجود حولا الغضي عمر ما استبت أقول بان بو شاقي والله وان إسلامي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صبا ذنب جيدة يا رب الله يعني انت دينك لكلا دينك لكلا ومسكيت تمال كده سيو حلا يعنو دينك لكلا سمجر تيه إلهي ما قلنا وان إسلامي يقول لي تبتنا ماشي وكاشهات وإحنا نادية فديونا ما صاقع مكة دقال باب الأمي عمر نوض دقال أمي دقال كيوح السعودي عبد الله بن عمر ليه حتى قامت الشمس على رؤوسهم إلا يعرضوا كل العطية ضدك مرحي يعني على كل البالة لقاري سيري ما يسد العيد مركا يعني عندي نبطل العطية ضدك نكت ربطي أي مركي دنبال عمر داري يقول يبقى صوت كفري إلا هو مجالة ينن قرأت دقال أمي مركي لسكو عن عطية وداري أي اسكفري سيقول ويسكول تاقني وقفها ما يولي لربه إلا سيدلو أو يسألون لا يقول يفعلوا ما بدا لكم وحل عليه وحيدين مغضاني وحرائي تولين السمائية فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا وحاد دونتا يا لبو العين هنا إلهي ما قلنا أرسيها دان صدح بقولوا لين قادي ما كولا تكنن من أموالي كساري أموالي كساري يسا دونتا يا لبو بيوتي دان صدح بقولوا لين هنا مكا أموالي كساري أموالي كساري دونتا يا والله إن صار دونتا يا iyadoo nabarkii sidii loogu boobayo isna sidaa leeyahay buu leeyahay wiilkii raayada daba socday ayaa oday dar qurux badan si toox rabanayo iyadoo quraysheed ka mid ah soo baxay buu yidhi dabeetana wuxuu yidhi maasha allakum war waa maxay waxaan dhacayaa lagu buuqsan yahay waxay yidhahdeen sabaa cumar baa diintii ka baxay bay yidhahdeen waa balukaadiya buu ku yidhi ninkani hadduu naftiisa diin u doortay maxaa idinku ka rabtaan buu ku yidhi ma waxaad doonaysaa reer banu caday ibnu kacb
وقبيلك كذا شيء وغير هبل والله ما عمر سيدي كبود ديني من هذا عمر دشان غير هبل بيشتري دوتاني ما هو عرفتانون غير هبل على كان بولي يعني عمر وانا ما كلام غير هبل لك هاي هلكا كنت دشان كنت ما يعني اما واحد دوني تنبوله هنا غير هبل كشان هذين الربل غير بن علينا الله قال كشان كذا يعني كذا دليل عبد الله يرى حديث كوريني يوحده فوالله لكانما كانوا صوبا كشط عنه واحد مودي يقول مرة صار نيدو اللي بينه وبينه يا حي ما كل جريء تاجري ما طبش كوخاصنا دي مغاد استاجي عبد الله بن عمر حديث البخاري كويا التي لو تلمامه ايام عليه بري دمدان ابي وحن كوغا يسوي مركز هنا يروح عليهم غرغر ما يروح بري دمبا ابي وحو يشيل يقول نينكي انه العاص بن وائل السهم نينكي لو رجل عاص بن وائل عمر نينكي بشيء لها هي العرب ابي وياه وضيدي واضح كان يبو كملها لكن ما كانهم الى عمر وكبحي عاص بن وائل وهاولي عين كيرنا ما كان دمبانو قاعد يقول رد الفعل كي اما جواب جاي قريش كبح سيد سلام لماذا عمر جواب هذا هذاك به الا يبا ليدا دواد وهذيك مركبات ضد وطريري رابي الى عمر دلال حديث قال مسلم الامام احمد قصه كان سنه صحيحين وحو شيء يعني اني واجب بطل النظريه بره الا دلو سنه كوت صحيح الى شريح بن عبيد لكن انت تبغى مرسل ضعيفه على كل waxa meesha ka muuqanaysa sida xooggan ay isugu dayayeen ama loo markii u dareentay islaamnimada Umar riwaayaadka kale tirada badan aynu meel ugu gaban jiray quraanka inuu saan u dhageysan jiray iyo inaadeerkii iyo gabadha ay walaalihiin gurigooda inuu taballa wax ku dhuftay iyo kuwaas oo dhibaato qisas ku soo aroora al-siyar wal maghazi ay soo arooriyaan laakiin طريق صحيح aan ku sugo min Madiina wax si fog ma aha inuu quraanka ka maqlo gurigaasi يعني سندانو بين لنا ما حد يسانو بين صحيح تاريخان إنه هذا وقت صورة قال وحسي فوق ما هنا إنه عمر حكيم كرواية طه ما أنزلنا عليك القرآن اللي تشقى إنه تجيشته أو حكيم كرواية والسلام القرآن كالتأثير كأنه قصة ميانة وحفظ معه وحين تلمام إن عموما وإن نبي عليه الصلاة والسلام والسلام كيف فيني صحابتنا أي لوردي بيي أما تفترى أي حيثتي وقت ياسين لكن عمر وإسلامي وحا موقطة عمر لين أبابك إنو اسكاها وكل جي إسلام لمدي سنكا قريش ودن وربع يعني وكنت كذي كعبضة سيدة ابن مسعود شيئا ينين سببتي مكي تنبي إلا أقبلت إني كنت كالكرات كعبضة صحابة ثاني لكن أنا وحا موقطة قريشي إني أتكيسن كالويدي إني وقتا سيدة جيستان لو تنوح بالأبمي قدومين عصب هي أفكار عصب هي قاد عصب وحب الأبمي رأيك قال هذا ما أنت يدريد قوة غان مثل مدح وحنا إذا ترعنا قواتين بقالين وطنا مضطة ما برشل غسمية أي الله بالأبين الغسمية نبي محمد عليه الصلاة والسلام هي عدة طاقة قوة قال يا مسلم محمد وانا معها هذه غير بن هاشم ودمي ويتاقيري قال كودي مسلم كودي ستاسي waxay keensatay markaas in Quraysh oo dhan ay isugu tagto in qabiilka iyo muslimiinta iyo inta raacdo dhan in aan qabatay lagu sameeyo muslimiinta oo kale shacab Abi Talib qisadan ku saabsan go'doomiska iyo nimankii Quraysheed inay isugu tageen inay go'doomiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam علماء التاريخ قاب كون عضياء روايات كالجديشن كسوريان لكن حدثنا هنا يدعي روايات كسورية تترى بدن له صحيحات بدن معها لكن أصل كأنه كرا قصة هي شرطة واحد المامية حديث بخاري وياله يعني حديث كاس بخاري وياله وكان النبي عليه الصلاة والسلام قلت المامية ماشي ليس كل عصري والنبي قلت المامية تقاسمت فيه قريش على الكفر أما تقاسموا على الكفر يعني كسمائيين ماشى لهذا خيف بني كنانة الحديث كما كان أصل كيسة صحيحة وحو شيريا ماشى أي كان عضي هشيس ككاني خيفنا إمام النووي رحمه الله وبالله المحفظ
iyo khayf iyo abdax iyo batxaa wuxuba waa isku meel quraya magaca wada lagu leeyahay. xadiidku waxa uu tilmaamaya markaa nimanka quraysheed inay isugu tageenna meel go-aanna ay ku qaateen in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii raacaba in la go'doomiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii raacsiisanba. waxa tafsiilka ama qisadaasi si balbalaadan inay usoo aroorto waxaa soo arooriyeen xadiis mursala abilaswad iyo zuhri iyo niman lamidi ay soo arooriyeen. axaadiistaasi mursalka ay waxay sheegaysaa tafaasiil ku saabsiisan muslimiintu inay galeen shacba abi talib, laakiin waxaynu leenahay asalka xaadisadu inuu sugan yahay waxa sheegaya imaam albukhaari. markaynu isku soo ururino axaadiista kale waxay sheegaysaa wuxuu macnihiisoo dhami yahay in ay nimankii kaale dhowr goor ka codsadeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu joojiyo warkan uu diiday, inay u tageen abi talib iyo kooxda kan oo yidhahdeen ninkan ka joojiya ay suurtoobi weyday. akhiiran inay keeneen codsi ah in la dilo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo abi talib inuu dhiibo. waxa la yidhi wiilka quraysh ugu fiican ugu roon qaado badiilkiisa kana kan quraysh ha disho. dabeetana wuxuu ku yihi warkanaa wata waa adiga inankaaguna ha dhinto kiinanaan idiin koriya keena saasi weeyaan warkaa wataani marna ma aqbalayo. tii markii la isku afgaran waayena quraysh waxay qaadatay go-aan ah in la go'doomiyo reer banu hashim ama reer banu cabdilmutalib oo reer banu hashimna la socdaan baa la yidhahdaa. muslimkoodii iyo kaafirkoodiiba wuu israacaa. waxaana lagu heshiiyey inaan nabi maxamed marnaba la dhibin calayhi salaatu wasalaam. gaalka muslimba saasay isku raaceen. nabiga iyo waxoogaa muslimiinta la joogayna waa raaceen bay leeyihiin qisadkaasi say soo aroorinayaan. markaasi waxay galeen meel xaafadaasi ayay wada galeen. quraysh markaa waxay ku heshiisay kow inaan lala fadhiisan, inaan wax laga garanin, inaan wax laga gadin. qaarkood waxay sii sheegayaan inaan guryahooda la gelin, inaan hablahooda la guursan. yani go'doomin dhammaanteed muqaataca rasmiya ama go'doomin dhammaanteed in lagu wada sameeyo. go'doomintaasi waxaa la yidhahdaa dhowr sannadood ayay socotay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kooxdii raacday iyo reer banu hashim oo dhan dhowr sannadood ayaa go'doomiska lagu hayay ilaa iyo ay gaajadu adkaatay oo saamaha la cunay oo dib oo dhambe ay soo dhacday. qisadkaa markaynu isku soo aroorino iyagu waxay ku gabagaboobayaan 2 sano ama 3 sannadood inuu meeshaasi ku jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotay. markii dambana quraysh inay isku afgaran weyday arrinka kan inay haddana dib u shireen qurayshi oo ay yidhaahdeen wadadani si fiican maahe saxiifada aan burino. yani heshiisba markii hore la qoray kacbada la dhigtay oo ku qoran quraysh oo dhan oo in sidaa lagula dhaqmaa. markaba isku waafaqeen in heshiiskaasi la buriyo. heshiiskii markay rabeen inay buriyaan riwaayadkaasi waxay sheegeen inuu nebigu waliba u sheegay calayhi salaatu wasalaam heshiiskay qorteenba in aboor cunay oo aanu ka hadhin ilaa iyo kalimaatu shirki wa dulmi mooyaane. riwaayadka qaarkoodna cagsigay leeyihin oo waxay tilmaamayaan inaanu ka soo hadhin kalimaatu tawxiidka ilahay magaciisa wixii la halmaano mooyaane intii kale inuu aboor ku cunay. ala kulli xaal wasiiqadii yarayda la qorayna markii dambe la jiri soo saara waxa la tegay iyadoo aboorba cunay. saas muddada markay ku jireen ayuu dhammaaday go'doomiskaasi. waktiyadaa go'doomiska lagu jirayna dhibaatada aad oo tirada badan leh ayaa soo gaadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo reer banu lmutalib ama reer banu cabdilmutalib ama banu hashim baa iska wada leh. kutub taariikh sida kan diyaari cumari xafidahu llahu soo aroorinaya isagu wuxuu leeyahay qisada tanina inay waktigaa soo aroortay baa laga yaabaa qisada aynu soo saareen hore صحيحة حيث قصة سنين أبو سفيان يمين النبي عليه الصلاة والسلام يسوى الرحم كرفوه الدين يانا لواء لا باصلي آيات كي كسودك تفرتد بيوم تأتي السماء بدخان مبين أين رأسه شيء وقت يجيب قدام الكاسين أما بين مدير كذب وحن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إنه كريودر ورأي نبي إلى لنيي حديث صحيح كصار أبو طالب إنه نبي إلى لنجري وهو عرون جري وهو هيلي جري انت بصحيح البخاري هي مسلم وهو كسوية ورأي أسمكي وقيريوني نفسه كبحيسي
ayuu nabigu wuxuu isku dayay inuu in badan la jeclaysto odaygan waa reerkee diinta u dadaalaya inuu diinta soo galo. dabeetana wafaadkiisa markay naftu kasii baxaysay waxaa kaloo yimi odayadii quraysheed oo dhan ayana higalka soo dul fadhiistay. odayada quraysheedna waxay ku booriyeen maanta hadduu abi aalib islaama baa laleeyahay quraysh dad badan baa islaami dooneen abi aalib aan ku mintidna inuu diintii aabayaasha ku dhinto. iyana waa soo dhinac fadhiisteen abujahl iyo habarqabayaashii o dham iyagoo wada socda oo mar allaale markay arkaan inuu soo yaro liilaya ama nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yaro raaficinayaba waxay yidhahdeen laa targhabu can millati cabdilmutalib. abi aalib oo ma maanta adoo da'daas ah ayaa diintii aabaha ka tegi doontaa. cabdilmutalib diintiisii ma maantaad dhaafi doontaa bay yidhahdaan. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahdaa qul laa ilaha ila allah ashhadu laka biha yawma alqiyaama. adeerow laa ilaha ila allah dheh maalinta qiyaame an ilahay agtiisa markhaatiga ku fure. siday ugu wadeen hadalkii odayadii ayay waxay kaga yeersiyeen markii dambe abu aalib inuu yidhaahdo lawlaa tu'ayiranii biha quraysh, haddaana ka cabsi qabin buu yidhi inay qurayshi ugu ceebayso oo aanay odhanaynin odayga waxa ku kalifay baqe uu baqayaa ku kalifay inuu laa ilaha illa allah yidhaahdo la aqrabtu biha cayni, adeerishaada waan doojin lahaa oo waxaad doonaysa waan ku oran lahaa maaha ilahay ba ka cabsan laha. saanan quraysh ka cabsanayn buu leeyahay ceebayteeda waxa ishaada ku faraxdo ayaan odhan lahaa. waxay culamadu yidhahdaan waa sababta kusoo degtay bukhaari kusugan iyo muslimba inaka laa tahdi man axbabt walakina allaha yahdi man yashaa. aayaadkaasi inuu ilahay leeyahy subxaana watacaala nabi maxamed adigu kaa doonayso ma hanuunin kartid ee ilahay baa ciduu doono hanuuniya. yani quluubta basharka ilahay bay gacantiisa ku jirta subxaana watacaala. adigu waxaad awoodaa waa inaad dadka diinta u sheegtaa. abibakar marka uu ahaa oday askaarta gaalnimadu ay biyo dhigtay oo ay adag tahay inuu ka liliilsamo oo ku gaboobay oo caadaystay siduu diintii aabayaashiiyo dhaqamadan u ilaalinayay oo ay marka kana ag joogaan raggii ay isku da-aadda ahaayeen ama isku kacaanka ahaayeen oo iyana ku boorinayaan inaanu marnaba ka tegin diintan aabayaashi. riwaayadka saxiixii waxay tilmaamayaan sidaasi abibakar ku dhintay. ibnu isxaaq abi aalib inuu saasi ku dhintay. ibnu isxaaq baa wuxuu soo arooriyaa oo leeyahay cabaas ibn cabdilmutalib baa markii dambe arkay isagoo dibnaha sii dhaqdhaqaajinaya markaasi wuxuu ku yidhi ilahay rasuulkiisiyo waa ka dibnaha dhaqdhaqaajiyo waa yidhi waa dhaqan. dabeetana nabigu ku yidhi anigu maan maqal laakin waa war aan asaxin warkaasi. marka alcabaas ibn cabdilmutalib oo walaalkiina warkiisa marka lama dhegaysteen waayo nin gaalbuus ba aha waxbuu dhaqdhaqaajiyada markuu leeyahay adaagiisana mama asaxayo oo isba nin gaal buu marka ka dhaxaa. sida saxiixa ahayna ee xadiiska saxiixa kusoo aroortayna waxa weeyaan abi aalib inuu gaalnimadiisii uu ku dhintay. walidalik ayaa waxaa ka muuqata nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu in badan odhan jiray ilaahay dambi dhaaf waa ku weydiinaya inta aan ilaahayga kaa reebin. inta aan la odhanin dambi dhaaf alla uma weydiin kartid ilahay dambi dhaaf waa ku weydiinaya. kadibna waxaa soo degtay aayaadka qur'aana ee cahdigii madaniga ugu sii dambeeyey soo degayay ee ilaahay uu tilmaamay inaanu gaalba alla wuxuu weydiin. ma kana linabiyi waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walaw kanuu uli qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim. ilaahay aayadda uu ku leeyahay uma cuntanto nebiga iyo kuwa iimaanka laga helayba inay gaalo dambi dhaaf alla u weydiiyaan haba ahaadaan kuwii qaraabo ugu xigay kadib markii ay u caddaatay inay kooxdaasi asxaabuljaxiimka yihiin in ilaahay dambi dhaaf loo weydiiyo taas lama laha. yani gaal ilaah u naxariiso maad odhan kartid qur-aanka ayaa reebay. laakiin waxaa ka muuqata intii ka horreysay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu jeclaa inuu alla weydiiyo ama munaafiqiin waaweyn inuu ku tukaday sidii cabdillahi ibn ubay ibn saluul oo kale ama mushrikiinba allahuma afir liqawmi fainahum laa yaclamuun inuu hore u lahaa. laakiin waxaasoo dhan waxa weyaan intii aanay soo degin nusuusta tani laleeyahay qof dambe oo gaala waxma weydiin kartid. halkaasi waxaa ku geeriyooday ciddii koowaad ee nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka dhicinaysa wax ka rabaysay. waxa iyana isla waktiyadaasi geeriyooday khadiija bintu khuwaylad radia allahu canha saxaabiyadii weyneyd ee nabiga xaaskiisa ahayd ee khadiija bintu khuwaylad la odhan jiray iyana waktiyadaasi ayay geeriyootay. wuxuu nabigu kusoo baxay waktiga kan culamaada sira qaar kamid waxay u bixiyeen caamil xuzni bay yidhahdaan sanadkii murugada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waayo labadii qofka dadka ugu waxka celin badnaa ee uu ahaa sanadkiisa ama cidda uu ku tiirsan yahay ayaa geeridii mar wada timi
والله سنة كان صيب بحين بالي الأمر تسوحي كانتي إنه نبي التجابية عليه الصلاة والسلام بل إنه اسكت ضيو دعوة مالك رئيسال دكتور إنه الراديو أما مركز كلام وذلك وقدر قاري كرو الدين رئيسال دكتور إنه الراديو مركز كان كلا أيضا أبدين ونقلنا قصة في خصوصا أروري روايات بدن بصوا أروري ريانا أصحي وواقدية رجلا وعائشة أروريا قصة لكن أسأل كذا وحلنا وحينا غفلا تقصوا أروري البخاري إن شاء الله تعالى إذا ما كان شيء جوده قال لي هذا لكن عموما واحد صار أروري إنه نبي يسكت دعوة إنه مركز كله راديو دبتنا إنه كتجي مقالة مكاهي إنه قطين ماشى طائف ولا يلعبه طائف نوع مال اللحن الميل مالها شكله وشرته مقالة مكة طائف لمن ثقافيين بعد كده ماشى سيرو قلت لي من كائن وديته وقرقالة لأن اسقصاد ضدوه وقصف كاسي وحشرية المركي وتنينه إني عبرت الأضياء اليوم من الجديد متطور معلومات كل الجو إنه ماشى سينما مشوقي بيجوا هي المقالة الحياة بين الصومالي لما تدين الدين تقاطعين الجديد أخيرا أنا قدر بطلق يا عبرت يا القدر أو تبتل الشيء مقالة الحياة صاري إذا عبوها يدير يعني وقصة بحيث وبقي ذلك كهل ويان باب لمن إليه القوة عوام قريب باب تنوكي رأينا وحولا خيرا نحن وإن عين بأي وحيسيات نكي عين بقال له بسعود بينين عن تاسل ورنشرين وها وكريستنا دبت لما كويسليه عين بقعون إنه بسم الله النبي يريد ونكي ويديه وورينا تحقات كياتي مكاسوء الشاقين النبي هاي نكي بوحكو إذا أدو حقات كتمي مقالة أيو الشاقتي مقالة الشاقتي بوحكو إذا ميانا يحين تنات شاقتي ماشي النبي الله يونس مقالة الشميات رسول محاسبه وقاتكتان قصص كعين كاشيغية وأهل المغازي سيدة يسوريا لكن وحا صحيح كمترا وحا صحيح وسؤاش عائشة أي نبي ويديسي عليه الصلاة والسلام عائشة وحي قلت لي هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد حديث كان سروى صحيح عائشة وحي نبي قلت لي عليه الصلاة والسلام إلهي رسولك سيو ما نتي أحد ما لك هذا أبغى تبقى كاصمت وهذا ما سؤال النبي اللي ويديني ودع عائشة بقى مكان النبي حاسب سيتاي وكبر واحد هاي مكان النبي واحد كور النساء وأحد كذب أحد روح الله يقانين كم هاي وقعده النبي عليه الصلاة والسلام تفت بدل السوق هذه الجود وكل الكعبة جت الشبيه وكفية السلام مدية يعني أنا محبط أن قالين والصلاة فدي كنت كذين عائشة مركا وحنا مالتي وحلوحي كقول عاي وحكا بجميع تلقى مرنا كاصومرين نبي عليه الصلاة والسلام وعائشة وشيء مركا ومالك قد بطيدين يشرتوه ومالتنا لنا رواية صحيح كويس شروري ساد ردد النبي وحكيري لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة تلقى وحن كلقل ما يوحي عن كلقل ما يبني بقوليه وحنا يقول أبكى وحن كلقل ما مالتي عقبة وعقبة بطائف يعني طائف بالوجه ما هتيم مدوك عقيطان مالتا النفط إذا أبن لغي من نبغولي ابن عبد يالي نك الله يدعوه وأنين كمدا غير بني التقيف أكابر طائف أما طائف وهي كيريبوا ويناني كمدا مالتا نك أصابن لغي بولي دين تأيينو يتاغيره فلم يجبني إلى ما أردت ووحي أن أشيري أمان ويري إذا ما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقت وأنا محموم على وجهي فبتهوى كتك يقولي أنا بغوتي رأيي لو فكر يوم الولية محمومة أيان قاطع يقول يوم روح سيصعد فلما أصطفت وإحنا قلت الماما يا مال أنا قلت لها الله يعني همي يسنوا مرويسا مع المغاغيون من ميرابي النبي يقول إلا بقرن التعالي فاش الله ينادم ويالي قرن التعالي وماشى الميقات كقرن المنازل غير هذا وذكر حج كسر صعبة إن نجد كي ماذا هلك ميقات كواي كسر حدان حج وماشى نقول لو كان غاغيون كانوا مرويسنا ما لو غانين ما راح مريم ما قرنين إلا يينا سوق قريمو يعني ماشى سلا إلى قرن التعالي ما كان ماشى مريم أيام ما الحقر قاضي
سواء كيقول نقول ضرور حرينيسا ضرورتي بسيطة ويقولي مثال وجبريل بقى جبريل بقى مكايد واقع ملك جبريل ويقول إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك إلهي سبحانه وتعالى ومقلي فلقاه وحي قوي الأخدين إيه وما ردوا عليك إيه وحي جوابك عن جنبه إلهي ومقلي وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه وحال لو صدر يقول جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ملكة بورا حكومة كاتبة إلهي كو صدره سيأبو أمرتوحا أدونته جبريل كاسو الشيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام دبت فناداني ملك الجبال وسلم علي وحيثنا إيه علي بيري ملكي بورا وإسلامي دبت له الويري يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت وحنا هيبوك يري ملكي بورا إلهي بانيك صدرين لغيك كاما خاتمانت وحبان طيفر حداد فرطو أنا أطبغ عليهم الأخشبين حداد دونتو وادي فرطو أخشبين والله بورا مكان عيلة عيال حداد التلاهة لغدا بورا غير مكان تتعطط الشخصات وكساريها نبي عليه الصلاة والسلام مركز وحكوه جوابي بل أرجو أن يخرج الله من الصلاة من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو حال ذلك الرجالية إنه دبرده وكسر صار من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا كو إلهي كلي عابده وأنا لا يعينه وشريك يالي إلا لأن دبرده وكسر صار يعني وحدري مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسي سواحك له إليه دعوته دين تنين دقوقات ولذلك وحي نفسي سدب سوق هذيك ابو فكرين سبب الماضية اشد يوم عليه هنا يتهي مالك الطريق مالك يقول لي بطنيدنا يتهي حسنا وكحديث كلام بخاري المامسة من تقم لنفسه وين النبي محمد نفيسه وما اربوصن نفسه تبكي تسوق هذه كمو اربوصن لكن وحود العالمي وحي يدري دي ترمال مرطو وهي كصانع سنوطو ما انت مسلمين لكن وعاتها عدين ده كلمة شفتو لكن هذا عمل ريقين مالك الله يحضله مالك در يدي شبه تبنيت دي ريقين عمل سوق أرسيه أما هذه عمها قدار أي نقطة قضية دلقة والرمية أما هذه مشرفتي هذا وحليه مالك سوى والبوات خبر الرميسة ونتيه ما لوح المسلم يجيب لديه هذه لكن دين توح والبليه وعد ولبوح يشو عد كو حل صارتنا أما في حل خالصة من شروع قضية دي وعاقسي يسد بركتي أي مسلمين تمانتين بضان إلى النوش نبو عليه الصلاة والسلام نتيجة وحبكم وصفات له فلي ولو حنكرة شقبة إلي لهي تبكوض وكفر صاروا كود العابدة وكله راح الحديث الصحيح عبا مخير أبو في الأنباء لله طائف وحي النبي عليه الصلاة والسلام تبكى سوقاتك أما الدعاء معروف كاهر علماء تاريخ كيف بدل صور الرياض اللهم إليك أشكو ضعفي وهواني على الناس وقلة حالتي الدعاء عينك تشيته يعني كعدات الله ينظرين الله كل ميه وحصى صارهم بين لاني ابن إسحاق يرد الله من بدون استند صحيح أما ابن إسحاق يعني